mana kaa yeelayno gudoomiyaha degmada hodan xafiisow dhulkayga ka dhex dhistay warqadaa la qaatay dadkiyaa la liisgarayhaa sharciyaa idin siiya anigana waa taaganahay yaa yuhuud ah yaa falastiin ahay taagan tahay been yaa la sheegin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aniga waxaa meeshaan ka hadla abtiyaashay in muddo ana waa hadlayseen waana qaylayseen waxba tari maayo qaylo iyo hadal iyo cabasho waxaan u maleeyaa waa nagala adeega annagana meeshaanaan nimaadnaayaan qaylinaa qayladaasna waxba tari maysa aniga dhulka hooyaday ay ku dhalatay oo 80 jir ah maanta nin dhaha anaa iska leh igama gadan dhaxal ilama laha waxaan dhici karin waayo marka hadal waxba ma taraayo midda kale aniga galabta meesha waxaan kala hadlayaa madaxweynehayna xasan sheekh maxamuud aan la hadlaa eedda waa laga dhowray lagama dhowraayo eedda haddausan asaga dhulkeena bixin waa inuu naga kiciyaa askarta meesha la degsaday gudoomiyaha degmada hodan xafiisow dhulkayga ka dhex dhistay warqadaa la qaatay dadkiyaa la liisgarayhaa sharciyaa idin siiya anigana waa taaganahay waxaan dhici karin waaye beenta ha la joojiyo mudana madaxweyne haddaadan dhulkeenna adiga dhiibin waa inaad naga kicisaa gudoomiyaha degmada hodan aniga dhulka hooyaday ay ku dhalatay xafiisow ka furtay beello waxaa nin dheer iyo nin dhintoo markaadu u qabsadaa berri subaxi ciidan waa u diri kartaa xafiisow ka furtay aarkudheeshina uu ku dhejiyey ninaan heebtiisa ahayna ma soo geli karo anigana dhulkaan ku dhasho waayo xoogaa 20 sano ilma adeeradiis ay xoog ku haysteen hadda waxaa dhacday kii ii dhisnaay oo aniga aan deganaay in la ii soo garaaco 8 kunkaan sharciyaa lagu siihaa kii ay ayaga iiga fadhiyeen ee xoog ku haysteen waaba haystaan marka yaa yuhuud ah yaa falastiin ahay taagan tahay been yaa la sheegin dowladdaa u sabab ah xasan sheekh maxamuud waa inaad na soo faragelisaa haddaad leedahay anaa madaxweyne ah waxaad leedahay sii waxaan kaloo sheegaa aysan abtiyaashay ka hadlin warshadda kafka aniga awowgayaa siyaad barra ka qaaday waxaa la yidhaa goobkii gagabaale awowgayaa gagaba ka guri jira oo gadi jiray see nin kale u siihay haddii dowladda ay ku shaqayseen waa ogolnahay haddaysan ku shaqaysayn annagaa noo soo cela sharciyaa dhiga laba sharciyaa dhiga diinta islaamkana waa dhige sharciga waddankaan u degsanna waa dhiga mana kaa yeelayn xasan sheekh maxamuud meeshaan wixii ka yimaada adaa u sababa odayaasha abtiyaashay warka qaaraa kuu qarqaraa rabaa dhul dowladeed ma aha annagaa iska leh tii dowladda shala naga qaadana nin kalaad siiso waa waxaan dhici karin mana kaa yeelayn asalaamu calaykum dhammaan waa kasoo qaybgalaashiisa waxaan ku salaamay salaanta islaamka waqtigu waa gaaban yahay waana warkuna waa batay wuxuuna waxay u baahan yihiin nuxur iyo inay ka soo baxaan natiijo inuu warkuna dilo ma fiicna waxaan rabaa inaan dhowr sheer aan ku ayido intii iga horreysay wuxuu hadday nuxurkooda la ogaado inaan dad xaqlanahay dhul leh degaan leh dowladooda ogol nidaam ogol sharci ogol dhibaato wadin aan nahay aan isla ogollahay inala dulmihana aan isla ogollahay what's the next maxaa ku xiga waa in aadna xagee uga bixi karra ma dacwaa ma dowla ma dagaalaa laakiin maanta haddaan iska daba wareegno sidii waxaan ka qayb galay shirkan maanta aan joogo oo looga hadlaya zona kii shanaadaan u maleeha weli waxaan taaganaha booska markaas waxaad dareemi kartaa weaknesska nagu jiraahay oonuu yahay go'aan qaadasho la'aan mujtamac hadduu waayo inuu go'aan qaato hadda waxaad joogtiin zona waxaad arki doontiin idinkoo saqiira laydinku haysto haddaad maanta tan aadan baaki ah
waxaan rabaa marka walaalahayo dhibaato badan jirta dawladda dadaan noo qaabilsan xildhibaano noo ah wasiiro noo ah saakirta hadda waa dhinteena malihi waa joogaana malihi gabadhaasa ilaahay khayraad siiya uun ayaduna maantay u dambayso yaa fari kaligood foolma dhaqda annaguna ma rabno waxaan rabnaa inaan warkeena oo ku dhammaado war laa yamshi ya nin raba inuu gurigaas qaataay ya hadalku tegi maa taa la iska raba waxaan kaloo rabaa inaan warkii ku sugin oo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya naftiisa aan fariinteeda maanta uga faa'iideysto in madaxweynuhu hadda ka hore xaali faarax gooliya maxaa sabar u yeeray markaas uu faaraxow maxaa adiga dawladda iyo waxaan qabanay miyaad arkinowda wuxuu madaxweynuhu war macaan shaqo badan oo malaba oo caana maca warkaaga maalin kasta ka soo baxo laakiin albaabkaaga markuu ka baxo nimanaa leen ku dhinjaaw madaxweyne xasan sheekh waxaan leenahay ummadaani waa ummadii dawladda waa ummadii dadka waa ummadii deegaanka dadka liinta ku dhiijinay dawladda iyo iska keena iyo horkeenaya madaxweyne arrintan sida ay tahay u qaado dhammaan ummadda isugu timid ee 39 waxaadna u malaysaa in meelihii in la taabto la rabay weli aan la taaban oon la gaarin maxaa yeelay waa dhulkoodii la boobaa dadkoodii la dilaa dhaawacoodii yaal maydkoodii hadda la duugay dadka lagu baabi'iyaa yaal dadka lagu abiyuusaa taagan waxaa waaye nimanka la yiraahdo 39 soona kay kaliya looma socdo ilaa saqiira la idinku socdaa wallaahi indhaha isku haysiin waa hurdaysiin inta tuugada hala socotana waa iska dili weyseen waxaan idin sheegaynaa oo cadaari cod gaaban aan ku leenahay mid maqan iyo mid joogo waa inaan dhulkaasna loo kaco dhulka kalena loo kaco meel walbana aad istaagtiin hadday noqon weyso ee sidaas u hurdiin waryaada ma talaada wuxuu yiri gabdhaha ayrow yiri inay banaanka loo bixiyo ana wuxuu yiri maxamed xasan sheekh u hoos fadhiisto wiri inay gabar ay qoraxda fadhiisan gabdhihiina ku dhashay ee iska lahayna qoraxda la dhigay ali faala idin haysto balaay baasoo dhan idin haysto nimankiinaana idinku soo wado xaaji xasan gardheera wuxuu yiri nin murusada si warda hadaad aragto murusada kala raacdayna wuu yiri nimanka murusade ee 16 ah waa iska qabalaadihiin waa dililaadihiin war saddex kamid ah hadaad dishiin inta kale waa carreysa inta kale ya maxaad habta nimanka idinku soo harkaca qoorta uga gooy walaadihiin maxaa idinku dhacay maxay taa baaska idin haysto waa sixrantihiin war wax ma idin sheegnaa niman yahow hadaa soo kay kaliya u qabtiin meel walba la idinka barakicin rabaa warshada birtaa la qaatay tii kabka la qaatay mid walba la qaatay tii tarqi sigaarka la qaatay war dhul mursado dhan la qaatay war waa la idinku fiirsanaa war xasan sheekana soo siidin leeyihiin war xasan sheekada ka afka qabtiin uma taykirtiin miya ma cabsanaysiin maxaa dhacay xasan sheekh waa bilowaadan adinkoo kala ah intuu tagtiin xasan nimanka wax maadaha soo siibin kartiin war niman yahow dadkeena dhiikara sukara awalaysay haddana dhiikara leynaayo waana la ajli meesha waxa ka socdo war murusada u tasho intay isu timaadiin oo maalin walba kala abatiin ha kala cararin war niman yahow isu taga tashada wax ma aragto wax gala isu kaasada war niman yahow jooga war wallaahi billaahi tallah gabartiinana guur male wiilkiinana ma sheekay karo hoteelada iyo dhaqaayadahan waa idinka xiran yihiin inuu mahad salaada dadkiisi dhulkiina u boobay iyo ali xawahay ali fa'le oo ali fa'le ay u hambalyeynayaan inuu mursado dhulka uga xoogay ee gabdhahooda hooska ugu jiraan kuwiina banaanka la dhigay waa idin doqonimo waa idin dadnimo xumo nin mursado ah oo ayaka kobaha u caseeyo oo kobaqaad u ah dhulka waa dan guudan ka dhigay yiri waa taqaaniin gurigiisu u galeen taanta asiga dhanba dila nacala ku taale
ورنمان كيس كلاي مرصد ورنمان كيس كلاي ورهدي ساس دين قويس وايدين دمات السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي يا نوم هذا علينا إن نوسو رجلي وهل كان سوكاي كان الحمد لله أنت كبعدي ورمدنا رجع غار ورركي إيدها ين وحانس لها الله وياكو جوجيا وحواية ورنحر له أو قيمة له أي هل كان كجديين لكن وركه دين لسي وضو وحا معان بيلا يكي قيمها لها مركز هورا لوغو يري ميشا ايا قيمة بيلا عقوبتي ان هولي وقالني محمد عيقل للشيغي حلقي هورا نقود عدي إلهي وحان نقود ماركتي كعد سنينا إنو نقداف دنوبا قالني دنوب هدي لقالنا إلهي إن لوغتها وكينواي وحي هوري oo aan niri heridiid ama maaragtay mursade ama 39 aan waxyaabihii socday inta ka hor kacnay annagoo waxaan helayna aan aqoonin ilaahay naga cafi inta dambena ilaahay waxaan ka baryaynaa in tawfiiqda Allah noo waafajiyo aniga waxaan rabaa ugu yaraan laba noqdo ama 3 noqdo hadii aanan helin inaanan cabaadkan ka bixin dhulka soo rakay kaliya ma maalinba meel uu soo joogo sida la maleeyahaana meel uunan hadda joogin uu tagi doona waxaa la galay dhulkii warshada isbuunyada ee Xayla Cabdi waa wada joogna 18 boos laga dhigtay waana la dhistay warkeeni wuxuu ku ekaaday cabash waxaa faa'iiso xildhibaanada lagu galay imburtooriyadii Cariif waa wada maqlayni maanta soona kay intaad ogtiin 7 bilood ayaa waxa maaragtay dibku ka taagan yahay oo dhimasho iyo dhaawac ay ka dhaceen dhulal badan oo kalena sidaas ay u calaamaysan yihiin waxaan isleeyahay 2-3 noqdo hadii aan la helin cabashada ka biximayn waxaan isleeyahay cabasho wax noo tarimay koow hadaynan ummadaanu siyaasad midaysan helin oo u dooda oo danahooda u doonta wixii lagu leeyahana ka qaada ee midaysan ee iyaga waxa dhexdooda yaala inta iska dhiga ummadan ninka xilka hayana ku difaaca kaan xilka hayna xil u doona ummadan masiirkoodana ilaalsha xoolaha hadii aan la helin qof dar u dhiga dacday cabaan hadii la waayo qof ilaalshana bahalka cuna lama soo hooynayo magaca mursade maanta malaha xoola jir malaha cid ilaalisa malaha dhaqanka maanta meeshan jooga waxaan ka codsanaa inay dadkaas la xisaabtamaan faa'iisa kaligeed maaha maanta 8 xildhibaan iyo wasiira joog inay isu tanaasulaan ee dhibaatada tolkood ku dhacaysa ay siyaasad ilaalisa u noqdaan dhaqankuna kula xisaabtama hadaan la helin cabashadeenu meediyaha ma dhaafi doonto xilliga la joogana cabasho waa ka dhabaat sidii xayawaanka la iscuna midba midka ku xoog roonyowna cuna waxaana wax ilaaliya waxa waaye inta siyaasadda ku jirta ayaa ummadaas ilaaliya u ah waa qodobka labaad waxa waaye dhibaatada haddana haysata hadayna waqlal helin ma naga joogsanayso war waa dhamaaday waqlalay u baahan tahay cidii waqlashaas fuli lahayd ilaahay naga soo dhacsaa maanta wax kale ma dhahay waxa way shay kastaba waqti wax taraa meediyaha laga hadlo la calaacalo hebelow la yira waa dhamaaday hadala nin ba maxamed cigal waa wuxuu yiri shalay nima maaragtay dhahay farmaajo daaqadan kaaga soo galayna maantana xasanan daaqadan kaaga soo galayna male dhibaatada soona kay oo rag iyo dumar lagu leeynaana wadada u xiri ma kuna soo bixi ma waxaan isleeyahay waa cuqubana haysata ilaahay anaga dulqaad dhulkeena iyo dhibaatada mursada maanta haysata ma ayaan dara mursadana Allah waa lahay dadkana kama tira badnayn kama tayo badnayn laakiin dad ilaah leh oo isku xiranay ahaa jireen tafaraaruqana galay ilaahay inaan barino oo dhaqanku siyaasadda la xisaabtamo oo waxa waaye maaragtay
dhibaatadana haysatana waqlalay u baahantahay waqlashaas haddaan la helin waxaan ugu socdaa ma joogsanayaan xaafad kastoo tuuga ka kacdo hadday tuugadu jidka dadka ku dhacdo waa dool waay meel kale ka timid laakiin hadday gurga u dhacdo barkeeda ku jira soona kay dhaca ku socda ee gudaha loo galaa ee shooli leeyahay nina intay yimid oo soo baxay yiri waxaa waaye sida caraala sheegayay masaarta geedka ku daabanaa geedka kale ku gooye dhulku waqlalo u baahan yahay haddaan siyaasad dadka ilaalisa iyo waqlal la helina warkaan cabaadka naga dhamaamaayo wixii aan galnana Allah naga cafiyo wabillahi tawfiiq dhammaan akhyaarta soo horjeeda baba yara dadkii inta waa ka badnaa hadaaye waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaanka dib ilaahay ma hadle awood noo siiyo maanta inaan soo nimaado meeshaan oo aan ka hadlayno danahayna cariiriga iyo dhibka aan ku qabno ilaahay awood noo siiya mahad iskale mahad celinka bacdi waxaa la sheegaa dad kale inuu na soo weeraray dad annaga naga midahuna inay wadaan maalin hore meelaan isugu nimid waxaa la sheegayay dadka soona kay dadka hor jooga cabdalle inuu ka maqan yahay laakiin cidda kale ay ku leeyihiin aaway dadkii warkaa sheegayay maanta ma iyo meesha yimaadaan dadka bursada ahoo dhibka wada oo dadka dhadhaca hor jooga magacyadooda meeshaan ka yeershaan sidii loo ogaado oo ama ay ku tanasulaan ama gantaan lagu rido ama la iska xiro ama la iska dilo ma magacyadooda meesha laga sheego inta haddaan ka gudbo malaha mugd meelahaas joog waan sheegi karaa fagaarahan laakiin lama sheegi karaan malayha inta haddaan ka gudbo horta cataa waxaad ku tari maa dadka aad sheegaysiin oo dhulkaynu u soo dhigtay waxaan leeyahay horta war naga leexda wayda naqaana naga leexda horaan isu naqaana naga leexda namahadi maysida naga leexda way iska kiin dhacaynahay naga leexda war mursow diyaar muu tihiin saad isaga dhici jirta inaad isaga dhicisiin dadka weerarka ah oo idin weerara oo dhulkiina dhaca inaad isaga dhicisiin diyaar muu tihiin iska dhiciya qalabka qaata wasiir ha sugina xildhibaan ha sugina iska dhiciya dhulkiina difaacda hantidiina difaacda waxa laydinku dhacaa dulmeed horu gasheen waay dowladdan nooga horaysay dhulkayna ma imaan nagalama qaadan wax lama dhiibin ninka hadda madaxda ahaan ugu helinaan hawiye waaye waa ciddayna waxaa noola sheegaa magaciisa noqon dhacaa holle waraaqda meeshaan lagu qaada asigaa soo saaray war madaxweyneow shalaan kuu helinoo dulmi kuuna helinaa naga leexo hadday jirto dhulka aad dadka dhahaya madaxweynahana soo siiyey hadday run tahay naga leexo namahadi maysida naga leexo waxaan ka rabaa saacaan laga bilaabo inaad diyaar u noqotiin dhimasho dhulkiina difaacatiin waxaad rabaa cid idin difaacay cid idin difaace ma jirto cid idinka dhacaysa ma jirto waxaad horu difaaca jirteen dhulkiina waaye waa ogtihiin waxaad soo marteen iyo laydinkula diraa iska dhiciseen iska dhiciya dhulkiina difaacda wa dhulkiina difaacda wa dhulkiina difaacda dhimasho ha la ogolaado jinnaad ku galaysiin ninka gurgiisa lagu dilo jinnow ku galaa ilaahayaa sheegay laakiin haddaad dayuus naqato gurigaaga adoo irda ka fadhiya in lagaa wareegsan lagu qaado igada anaa qaadaa lagu yidhaah naaraad galee naar marka warkii waa dheereeye waxaan isku ognahay inaan dhulkeenna difaacanno madaxweynahana waxaan leenahay madaxweynow war madaxweynow magacaaga nugu dhacaa shalaan kuu hilina naga leexo war naga leexo warkii kaa horreeyaa nooga kaa roonay nama dhicin dhulkayna lama dhicin xoog wax noogalama qaadan hadda maanta waa yaabanahay war madaxweyneow bal isdaba qabo oo dadkan weerarka oo habowga ku yimid oo dhulka dhacaya bal ina celisa isku day assalaamu calaykum